ما أنت كأرنا أنا قدي حلبانة دي اللي هكودور دي قبل كده مقالة دي دورشة اللي بعض جبل عن كربهاري أنت ما كأرنا ميديا كأرنا ورقة دو صحيح لاقة ما إن شاء جاي قدونك بارمان كورقة دو سكوبات يلي شيء يدك ما إن شاء جاي ورالكي شيخ واي علمو اسكو ديغنا أنا اسكو دتكونا أنا dadkii gada oo baleer abaalka galay abaalka keen galay bas abaalka galay jaray ada abaalka lahayd bas keen lahay haaganta fadhiyo shalay ma aragay la ku hanuun meel fadhiyo dhigwino wareegta isku wareeyo meel iifid weydiyo inkii la fadhiyo aragani oo kuna may waaha may roogde ti dhabtahay ti taw inta kool hadalay dhaanakii la hadalni hatana kii la hadalay sheekhyaalkii uu la dagaalamaani annaga toy شيخيدي أو شيخيدي وي شيخيدي يفتك جري أو شيخ قبل الأرجري استوك الشيخ لا أراد ولا ولد سوبال دلون الشيخ لا هاي ولا هلاون الشيخ لا هاي هذا الشيخيدي ولا هلاي مكجري لكن أو كوب ورقة تصرون قطع دي كوكو شيخيدي الهرب يدون هو بلاير هو بعض قرتيو هو بعض قرن معها بارمانكو يتبرد الصومالي ما شجنه سومالي همين كل دم نقطي دول إل كهوبطي هل همين إل سومالي كهوبطي بارمانك كويتورادو سوماليا إنن ويلاني أغنى أمريكا روغني بنانك روغن تري حتى ما يتري كينيات يميلها جلي يسين بنانك روغدان يا قرتي هو بعض قرتي ورقدي هو بعض قرن مكايسن oo sheegayay uu gordaan sheegayay uu gordaan isku deegaanka haynay eelka oslahaynay isku meelaas kula jeednay iska harbago haynay tumiyo koosan tumiyo siyaasan aan warqadis shaqeeyay tumiyo siyaasan saxiix aarare oo adal haytay ka shaqeeyay kada magac hore adag magacaawtay adag shaqeeyay weertooraha gobolka laga yahay jir anjax bulu gareed waa ku inta fadhi basiirka Jubbaland oo Kenyaanka hal harbeen oo la dagaalamay Kenyaanka waa ku قدنا اللي خطلي شجعوا بإيدي ما شجع تاس الله باربان كتير يصير شجع باربان كو يتبرد الصومالي ذو ما يقعد سنة إن الصومالي أو كهوب ورقة رونا قتال كهوبتي يا وهذا سام شيخنا ما ينقدر دون الشيخ يدي يفتك جرايد كجوريا يلي بدي يصير تاس وهذا سام سيلس كوريا بجري نونيس كوريا وان والأوجي تاس قدر كوا ما إله هذا لا يدرك تجين قبل كده جبلان دمان جبلان ما ظهر هذا له كارهان ما إله هذا له هان كده تجين ونو يصير عند الدور تان هذي يصير عند الدور تان أو نهبني ونو ولا هندي ذي ميلين هلو دي مسين أران حتى ما روغنا ونما هاي ندل له هدري أو مدنيال بارمان أو يصير الدور تان هبهاي شرعية كده رو باربانك الصومالي هم بها يعني نمكن لها كوسي كي لها كوسي واللي بالهري والها وذا كهور كياتي عملوها اللي بيسهم وذ هكا يعني شانن ما يفضانه ونما هسين كنا قدان وقاد دردارو تاسنا انت هسين كنا قدان شقي هوايني مسقران لكن ريت كان اي لن كرد او جبل كوكوي كسباي كوكو عيل قالوا كوكوي كينيا اراد اي كدغناي haddii aad Soomaaliya inay ku dooratay luqunta labada garab soortood gudoon u ahaatay adu diyaar garowdayna warqadda wareegaysa oo saxiix la'aanta ah waxaan u arkay aniga xaska shabi wixii ku jira soo bixeen war waa soo joodna banaankan taagan waxaan cadeynaynaa warqaddaas inay sharci ahayn sababaheedana waa kuwan Sheekh Aadan Madooba baarlamaan baa doortay baarlamaanka doortay sidoo ku yimidna annaga ku nimid qayb marka booli ay qayb xalaal ah oo la soo doorto dadkeeda matalaysa inuu isku darsado siraahda ayaga isku xukumaya uma saamaxaysa danta saxna ma matalaad buu ku joogaa beeleed ku soo fariistay Soomaaliya waxbay qaybsatay cid kastana meel baa laga soo doorto xildhibaan waxa jirtay deegaan doorashooyin astaysna horina heshiis looga gaaray heshiiskoodana waxa 17kii bishii 9aad
labada aqal oo baarlamaankana la mariyay madaxweynahan uu saxiixay meesha annaga aan ka soo baxnay ee nagala soo doortay aan xildhibaanada ka nahay oo ka matalayna dadka naga aan ku matalayna ee meeshu asaga ka soo baxay ee aadamadoobu hadda dadku ku matalay waa labada gobol oo isugu xigta Soomaaliya annaga garbaarina nagala soo doortay asagana Baydhabo laga soo doortay kuwii Baraaw laga soo doortay iyo kuwii gaalkacyo laga soo doortay Boosaaso iyo kuwii Beledweyne laga soo doortayna asaga ay la fadhiyaan caaw inuu yiraaha heshiiskii baan burinayaa waxaan u arkaa dagaalkii Kenya ay dalka Soomaaliya kula jirtay ee Axmed Madoobe uu foodada ku sameeyay inuu asagana foodo labaad dul saaray qodob waa qodobkaas qodobka kale Soomaalidu waxa ku maamahdaa laxlageeda ay u xaarataa Kenya ninka ilmaha u joogan ama ay maalin xaniyaha qabataba in Soomaaliya loo isticmaalo hadii uu isku dayana aadan kuma soconaysa taas waxaan ognahay isticmaalka la isticmaalay dadka loo isticmaalay dalka inaad ka mid noqoto yaayna dhicin oo ay suuro galin oo Ilaahay ha ku tuso kursiga aad ku fadhida qiimaha uu leeyahay iyo Soomaalidu ku doorato Ilaahay ha ku tuso hadii aad arki wayso waxaan u malaynayaa oo aad warqad dagaal bilowgii soo days kuma guuleysanaysa dagaalka kuwa ka horeeya ku jabay adiguna ha ku jabnin adeero waa kala talinayna wax walba ilaali waxu rag isu yahay dhanaan sun waxaan kala mudanahay wad garan waxaan kala istaahilnaa wad garan waxaan sunahay wad garan deegaan iyo derisna annaga soo xogn hadii aad tiraahdo nin ka yimid Soomaaliya ciribteeda damba ama ciribteeda damba nin ka yimid ayaan kula wadaagayaa wax xaraan oo xalaal ahayn oo baarlamaanka intiisa kala ku imaanin ma hadda ku keenaya hadii aad tiraahdo marna ma dhacays qodobna waa qodobkaas qodobka kala adiga aadan baarlamaankii sagaalaad dadkii banaanka baarlamaankii sideedaad waxaad ahayd helmaan hadal kuma jira baarlamaankii sideedaad waxaad ahayd dadkii banaanka lagu reebay markii dambana waxaad garanay oo ogtahay Soomaalina ay wada ogtahay in odayaashaadi la keenay oo ninkii adiga kugu haystay iyo adiga inta la sugan keenay odayaashaadi ay konsaxiyeen ku yiraahdeen asaga aadan soo dooran aadna ku soo fariisatay sidaas baarlamaanka hadda taariikhda shalay aad soo martay waxay ahaydna aad inkirta wadadii xalaasheedo maanta lagu heshiiyay adigu aad dacfurto aadana waxaan u maleynayaa ceel mugdad ku socotaa garabkan ka qabanaynaa waxa la yiraahaa hebelow saan u jabay eeg meeshan ku jabayn eeg saan u jabayn eeg in laga sheegay aadanow taladaada caaw ayay miiska saaran tahay kula saman tahay wadada san iyo wadada xun inaad kala doorato hadii aad wadada xun u diyaar garowday balay la isku jira baas mali meesha ka gashan ka galina hadii aad Soomaaliya inay ku dooratay luqunta labada garab soortood guddoon u ahaata adu diyaar garowdayna warqadda wareegaysa oo saxiix la'aanta waxaan u arkay aniga xaska shabi wixii ku jira soo bixeen war waa soo joodnaa banaankan taagan naguma shabin kartay xas 6 saacaan joognaa laamigan dhex taaganahay xildhibaanaan nahay reerkiina sidaad u matashaan reerka nagu matalnaa sida odagaada isku keenaa annaga odaganaga noo keenay isku ma day kartid marka inaad kaadin ka dhigtar mid xalaal leh kaanaga inaad adiga gacmaha ku tirtirta marna ma dhacays aad baad u mahadsantiin shirkanaga jaraa'idna saasaan u qabanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iska u daba taagnay waxaa la damcay qodobkii koowaad in la burburiyo waxaan la hadlayaa waa baarlamaanka 11aad iyo guddoonkiisa qodobkii koowaad in la burburiyaa la damcay waad ogtiin wixii laga gaaray oo lagu sameeyay waxaa la sameeyay in ceel qaalow la geeyo dad aysan matalaadooda ahayn deegaan doorashadii oo dhan la bedelay oo loo wareejiyay in ceel qaalow xuduudka Kenya la geeyo Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed ee 11aad oo sharafta leh inaan u sheegno arintaas arin sharciga ku fadhido inaysan ahayn arin sharci ku fadhiya maaha maxaa jira Soomaali way isu timid heshiiskii la gaaray waxa weeye September 17 annaga haddii aan nahay Jubbaland waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii goobjoogayaasha iyo madashaba waa og yihiin Jubbaland arrinkeeda arrin gaar loo galay buu ahaa arrinka Jubbaland laba qodob bay ahayd maadaama Jubbaland muddo badan ay ishaysatay oo xiliyadii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo Farmaajo hadda joogaba inta la isku dhaganaa
arrinkii asaga hagooni baa loo dhigay guddi baa loo saaray xukuumadda soo baxda inay arrinkaa iyaga wax ka qabtaan yuu ahaa qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaadna waxay doorashada qaranka Soomaaliya inay fusho deegaan doorashada labaad ee Garbahareyna ay ku fusho wax badan baan ka hadalnay Sheekh Aadan waad ogtahay siyaasi baa tahay baarlamaanka koytumnaad waa og yihiin Soomaali cid kasta og in deegaan doorashadii labaad oo aan ku casuunay gudiyadii ay ku yimaadeen fiid maadaama 25 oo ahaa 13 xubnood baa timid guddigii siid oo annaga dadkanaga ay ku jireen oo gobolka u dhashay eelaboorka Kismaayo in lagu ceshtay xog ogaal baa loo ahaa arrinta iyada waxay keentay in la sameeyo guddiga doorashada ninkii madaxdu ahaa geelo ahaa oo keligii ah inuu geeyo ceel qaalo geela deegaan doorasho ma bedeli karaa geela deegaan doorasho ma bedeli karaa muxuu u leeyahay haddii maanta heshiiska Soomaaliya heshiis cad buu ahaa waa la saxeexay waa la habeeyay sanduuqa dawladda la geliyay kaydka ah iyo ku jira September 17 waxaan annaga diyaar u ahayn in heshiiskan la dhameeyo doorashada dhacdo la isu yimaado kadibna heshiiska Jubbaland la isugu raadin lahaa xukuumadda markay dhalatana la sameeyo saasan annaga heshiiska u daba taagnay waxa la damcay qodobkii koowaad in la burburiyo waxaan la hadlayaa waa baarlamaanka 11aad iyo guddoonkiisa qodobkii koowaad in la burburiyo la damcay waad ogtiin wixii laga gaaray oo lagu sameeyay waxa la sameeyay in ceel qaalow la geeyo dad aysan matalaadooda ahayn deegaan doorashadii oo dhan la bedelay oo loo wareejiyay in ceel qaalow xuduudka Kenya la geeyo tii ay ahayd cabashadeedii waan u soo gudbinay baarlamaanka xilligaas joogay iyo xukuumadda iyo intaba maanta marka waxa weeye in warqadaas laga soo qoro annaga waxaan sugeynay oo guddoon ka sugeynay waxa weeye maadaama xog ogaal uu yahay in arrintan sharciyad la waafajiyo ilaa matalaadii dadka shacabka gobolka Gado Sheekh Aadan maanta dhamaan cad loo mid ma aha Sheekh Aadan waa xog ogaal laakiin dhamaan cad waa nin reer mudug ah way wixii ma yaqaan laakiin dhamaan cad meesha Sheekh Aadan meeshu ka yimid way maxaa loo baahnaa inuu sharciyad ku fariisiyo oo guddi loo saaro ama guddiga xalinta khilaafaadka loo daayo ama guddiyo isha baarlamaanka gudihiisa inta laga qabto nidaamkaas sharciga la waafajiyo cid walbana sharciga lagu qanciyo ma ahayn go'aanka Sheekh Aadan annagu aan ka sugeynay go'aan meediyaha oo noo soo marinaya ma aha arrintan matalaad way sidaan inta la isugu yimaado casho la cunayo waa matalaadii gobolka Gado way Sheekh Aadan nooma soo marin kartid media wax la yiraahdo maya waa in la soo fariistaa especially dadka deegaanka u dhashay buu kamid yahay inuu soo kana yeero odayaasha u yeero waxgaradkii u yeero guddi u qabto gacanta la galo dhameeyo matalaadii saasaan uga sugeynay ma ahayn mid media ka sugeyna ma ahayn marka waxa weeye arrin sidaas in lagu dhameeyo u baahan weeye arrin aan aqbalaynana ma aha warqadan aragna warqadda annaga aan aqbalaynana ma aha annaga waxaan ku fadhinaa sharci baan ku fadhinaa waxaan la hadlaynaa baarlamaanka 11aad oo martay sharafta leh iyo guddoonkiisa arrinkan waxaan leenahay sharciyada hal lagu qanciyo dadka sharciyadana hal la meel mariyo dadkan ilaa ballanqaadkaagii buu ahaa wax Sheekh Aadan wax aad ku qanacsan tihiin yaan sameynaya labadeena dhinac waxaan ku qanacsanay Sheekh Aadan ma waxay ahayd warqad aan saxiixna lahayn Timberline inaad Facebook noo soo dhigto ma ahayn kamaana sugeyntaas marnaba kamaana mana sugeyn annaga waxaan rabnaa arrintaas in dad loo saaro sharciyadana la waafajiyo nidaamkana la waafajiyo intaas oo mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد waxaa salaamayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gado lagu soo doortay deegaan doorashada labaad oo degmada Garbaharey Jubbaland waxaan salaamayaa dhammaan bahda warbaahinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland gaar ahaan reer gobolka Gado marka koowaad waxaan rabaa inaan cambaareeyo warqadii sumadeedu ahayd inay ka soo baxday guddoonka baarlamaanka oo wiiftada ahayd waxaan rabaa inaan sheego guddoonka baarlamaanka asagu ma aha askar uu magacaabo iyo shaqaalaha baarlamaanka
ma aha matalaadda gobolka Gado waxa weeye matalaad ummad ay leedahay ummad ay keentay sida asagaba loo keensaday iyo dadka la midka ah anigu waxaan aaminsanahay warqadaas guddoonka baarlamaanka inay ka soo bixin oo feeg tahay haddii ay run tahay aadan waxaad gelisay Soomaaliya mugdi cusub iyo jahawareer siyaasadeed waxaan ka xumahay tilmaan dawladda shisheeye inaad qaadato aad baan uga xumahay waa hadday run tahay haddaysan run ahayn raali gelin baan ka bixin doonaa inay been tahay markaan xaqiiqsano hadday run tahay waxaan hubaa warqadaas inay ka soo jeedo tilmaan shisheeye inay ku salaysan tahay arrintaas waxaan kaaga nasteexaynayaa inaad ka waantowdo hadday jirto ballanta aad ka gashay baarlamaanka hortiisa waxay ahayd matalaadda ummadda reer Gado bacdama khilaaf uu ka jiro inaad dhigi doonto meel sharciga waafaqsan qaasatan habraacyadii iyo nidaamkii lagu heshiiyay doorashada Soomaaliya ay ku gashay 2022 waxaan arkaynaa jawaab qaldan inay tahay waxa ka soo baxay haday adigu ka soo baxday waxaan rabaa inaan u sheego ummadda reer Gado oo 16 xildhibaan ku soo doortay degmada Garbaharey bishii Abriil waxaan rabaa inaan u sheego inaysan marna dhacaynin inaan aqbalno waxa adinku aadan dooranin inay idin matalaan inaan aqbalaynin cidii adinku aad doorateen in la ignore gareeyo gudoomiye hadaa ku soo laabto warkaadii Soomaaliya waxaad kala soo kulantay ayadoo dhisan doorasho u diyaar garowday wadooyin badan la soo maray xaalado badan oo adag laga soo gudbay waxaad imaaday ayadoo meel fiican marayso baarlamaanka intiisa badnaa uu fadhiyo doorashada madaxweynaha loo diyaar garoway waxaad qabateen adiga gudoomiyaha aqalka sare guddigii qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxay soo qabteen habraacyadii iyo muddadii madaxweynaha la dooran lahaa waxa ay muuqato warqadaas haday ka soo baxday go'aankaadu inuu yahay doorasho inaysan dhicin oo dalka uu qalqal galo taas waxaan ku leenahay horta ka waanto waa ku nasteexayna xildhibaan aan nahay walaal aan nahay dalka waa naga dhaxaya deegaan gaar ah waa wada leen taa hadaad ku fikiraysa ka waanto hadii lagu marin habaabiyay oo dawladda shisheeye iyo dad isbaay ah ay tilmaamo ay ku siiyeen ay arintan ku salaysan tahayna ayadana dad islaam aan nahay qaladaadka waa laga laabtay ka laabo ilaa caawar waxa ka suweynaa go'aan midkan ka bedelan oo ummadda Soomaaliyeed ku qanacdo gaar ahaan ummadda reer Gado gudoomiye hadii aad go'aansatay si shakhsiyan ah adiga aadan madoob ahaan si shakhsiyan ah abaalka ay Gado kugu leedahayna waa taqaanaa xilliyada ay xaaladdu xumayd waad ogtahay adiguna waxaad tahay nin Gado wax ku leh hadaad go'aansatay si shakhsiyan ah inaad u dulanto dad badan baa horta go'aansaday in dulmaan oo u suurtagal weys ayagana kugu baad ka mid noqon doontaa hadii alla idmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaana marna dhacaynin ummadda reer Gado inay aqbasho matalaad aysan ayaga la imaanin oo baarlamaan waa mahadsan